shalay iyo xalayba daran tahayba xalay waxa dhacay dagaal muusan ahayn dagaal waa u dhaafay cirku isku shareeray maxaa yeelay wuxuu isticmaalay Iran cluster bombs gantaalka la yiraahdo cluster bombs kaliya ma ahan cluster bombs gantaal kaliya ma ahan waa gantaal markuu wax yar socdo magaalada uu rabo markuu tago ama macnaha inta magaalo uu rabo inuu ku dhufto waa taqaana intuu albaab yar saacad u furmo 10 20 dhac uu kaga siin karo uu sii dhaca karo 20 dhac uu kala qaybin karo okay mideeda kaleetay Iran waxaan soo ogaanay sidoo kale Iran waxa ay u weerartay wadamada Carabta sida Imaaraat Bahrain iyo Oman iyo Qatar iyo Saudi Arabia wadamadaas waxa ay u weerartay waa maxay waxa ay u weerartay su'aashu waxay ka tahay waa maxay waxa ay u weerartay wadamadaas waayo wadamadaas waxa iskaashi la leeyihiin sida Mareykanka Israa'iil iyo France iyo Ingiriiska wadamadaas ay waxay leeyihiin iskaashiga muxuu yahay iskaashi wuxuu yahay hadii nala soo weeraro naga difaac macnaha na difaac okay Iran wadamadaas waa ay weerartay nag ayna ka dhigtaa waxa ay u weerartana waxay tahay sawaxas tartood taasna waxay ceeb ku tahay wadamada sida hadda ay leeyihiin iskaashi la leeyihiin sida Ingiriiska iyo France iyo Mareykan iyo Israa'iil sida Donald Trump waaba ceebta ugu xoogan hadda soo gaaray asaga wuxuu leeyahay waxaan dilay hogaamiyihii ugu weynaa ayaan ka dilay Iran laakiin taas waxa ma ceebta hadda fadeexada uu dhax fadhiyo ma taqaana wax la soo koobi kara aanan ahayn haddana mideeda kale waxaaba ku dhigan xisbigiisa hadda inuu shir uu dhici doono hadda u maleynaya shirkaas oo isaga looga soo horjeedo dagaal su'aalaha laga weydiin sida wadamada bariga dhexe sababta u weerartay muxuu yahay wax faa'iidana hore oo noogama keenin hadeerna wax faa'iida kaamahin aan qasaare ahayn maxaa yeelay qasaaraha hadda ugu xoogan oo ayaga haysto waxay tahay cadaanka ayaa wadan mideeda kale aaminsanba Mareykanka in laga xukumo Israa'iil Netanyahu inuu xukumo cadaan qaar aaminsan taas baan been waa wrong way aaminsan yihiin qaar aaminsanba Donald Trump taas hadda ku dhigantahay kow mideeda kale wuxuu yiriba hadda Iran wuxuu ka soo dalbaday in macnaha wada hadal Iran na dhiguma dhigin hadalkiisa way ka aamusan wax jawaab ma siinin Iran tookada ma taqaana way kaga go'an tahay waa la isku baaba'ay taanta la isku baabao Mareykan hadda kaliya waxa Donald Trump kaliya waxa u taagan ma taqaana labo choice kaliya haysta in Iran ayada is dhiibto oo ay waxaan ku dhahay ay tiraahdo okay oo wada hadlayna midda labaadna waxay tahay ma taqaana in uu dhulka dhigo isaga Iran uu nag kaga dhigo ay is dhiibaan laakiin Iran taas waxaan ku dhahay kama soo socoto waayo waxyaalaha hadda isticmaalaysa maahan waxaan ku dhigan taala caadiya maaha drone shaahida isticmaalaysa drone shaahid lagu magacaabo cluster bombs oo hadda ay xalay isticmaasho Imaaraadka ay ku dhufatay oo waxaan ku dhahay saldhigga ku yaalo Imaaraat France ku leeyihiin ay xalan dhulka ay kaga dhigtay waa cluster bombs bomb kaliya caadiya maahan cluster bombs waxa waaye gantaal markuu saa u dhaqaaqo meeshuu rabo markuu tago uu dabada albaabka intuu saa u furto ma taqaan dhac uu 10 20 dhac kaga siin kara 15 hadda intuu sii dhaqaaqdan Israa'iil dhac Israa'iil hadda raayna waxa socdo dagaal gantaalkaas cluster bombs leeyahay hadda Israa'iil hadda waxa ku uu nag ka dhig hadda uu ku tuuray laakiin waxa kaga badan qasaaraha iyada ay geystay hadda gantaalada ay geysanayso oo soo qofaysaa hadda Mareykan wuxuu bislaayay markaad waxaan ku dhaadishid hogaamiyooda markaad dishid waxa laga yaabaa inay is dhiibaan laakiin isma dhiibinba way kaga sii badiyaan waxay isticmaalaysaa gantaalooyinka ugu xoogan mideeda kale Israa'iil iyadana tiri oo Iran habadeeda gacantan ku hayna hadii habada gacanta ay ku hayso gantaaladan sidee ku soo baxayaan sidee ku tooraysaa Iran waa wax macquul ahayn su'aashu waxay ka tahay inta hadii habada Iran gacanta ku haysto adiga Netanyahu sidee uga soo baxayaan gantaaladan cluster bombs sidee ku isticmaalaya Iran gantaalada waa ay socdaan istaba joog waayaan ku dhac istaag ma marka Donald Trump hadda waa lagu dhigan yahayba waxbaan dil uu leeyahay hogaamiyihii weynaan dila taas laakiin waxba faa'iido oo ma aan maxaa yeelay wadamada isaga iskaashiga kala dhaxeeyay naga laga dhigay waxaan ku dhahay isticmaalaysaa gantaalooyinka ugu xoogan Iran marka
maraykan waxaa waaye Donald Trump hadda waxba fara kuma hayo wuxuu ku dhow yahay inuu Iiraan baryo uu yiraahdo waa inay baryeena raali noqdo warkeena intii uu xognaa waa intaasun marka waxaad nagala socon doontaan page-keena kan hadda aad naga daawanaysaan iyo YouTube-keena page follow gareysta Ramadan Kareem kulantan dambe oo wanaagsan bye